waxaan filayaa horta waxaa la yidhi war la qabaa xiise male 7 bishan ayaa madashii tii ugu dambeysay ay dhacaysaa Faysalow waxay ahayd 103 casho wixii la rabay in lagu qabto madaxweyne xasan sheekh markii la soo doortay wuxuu bilaabay 3 sano ka bacdi waxaad la socotaa waxa laala iyo wixii saacad hal sano iyo ra'iisul wasaare ugu horeeyay hal sano iyo laba bilood markii hal sano oo markuu joogay ayaa la cayriyay sababta loo cayriyana waxay ahayd in lagu marmarsiyoodo la yiraahdo almarxuum qaldaan isaga wax dawladeed dhac ku keenay ahayd sidaad la socoto haddana Cabdiweli waad ogeyd oo waxa la isku qabsaday waxay ahayd doorashadan oo markii uu rabay inuu maxkamadii sare iyo habo dhaqankii uu sameeyo doorashada guddigii doorashada waa tii qoorta la isla galay waa tuu Cabdiweli ra'iisul wasaare Cabdiwelina uu ku baxay waxa soo dhan markii aad fiiriso iyo dib u noqoshadeedii iyo dalka kala furfurkiisii iyo kala waxayntoodii iyo maamul walba dib u dhigidiisii iyo waxa soo dhan marka la fiiriyo waa cagajiid laba shay bayna ku dhamaanaysaa kow horta inay dhahaan waad u jeediin marka la fiiriyo dhinaca amniga waad la socotaa waxa ka socda qarax lama dhihi karo meesha la yiraahdo Muqdisho ammaankii faruhu ka baxay waxa soo dhamad u jeedo maalin waxa la sameeyaa qabaa'ilaadka iyo qoladan hadda tiimkan hadda jooga xukunka maanta haysta waa systemkii regiimka oo kale waxa ku dhaqmayaan dictatoriyada oo kale mar qabaa'ilaadka la isku diraya number 50 dagaal ee xarbul ehla ka dhacay mar maamul goboleed u sameyn bay dadka qoorta isku gelinayaan joohar marka la fiiriyo waliba waxa ma dhisno waxay ku dhawaaqeen inuu shirki bilaabanayo 3 bishan beledweynana way qaadaceen waxa soo dhan waa confusion la abuurayo waxay rabaan in waqti loogu daro dib u dhac oo keeno ama waxay rabaan haday xataa dhacday inaysan dib u dhicin ugaasiyadii baa la gadanaya ugaasiyada marka la soo gatana waxay keenayaan xildhibaanka dooran laha madaxweynaha xildhibaankii marka waxa weeye wiil ninkii dhashaa ku dheefsaday wuxuu soo dooranayaa ninkii soo dhis waxa Soomaalidu waxay dhahdaan dad niman xishoonayn dagaal xeelo kama hayso inuu isi soo taaga iskaba dhaafe anu waxaan aaminsanahay xaqiiqatan waxaan aaminsanahay in uu dalka iyo dadka uu dambi ka galay ayaan darada ugu weyn waxa weeye asaga oo hantidii caamka ahayd iyo midii private ka ahayd amniga maxaa faraha ka bixiyay Bashiir Allah u naxariistay ninkii madaxtooyada lagu aqoon jiro ilaa Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistay ilaa iyo Sheekh Shariif joogay qaraxi Aswaayil buu ku dhintay waxa ugu badan oo maanta xamar ka tuugsada waa ciidamadayada mushaarkoodii ayuu ku takrifalaya hadda telefishinnu milyan isku bixiyay idaacadii oo dhan buu gatay afkii oo dhan buu xiray tan qaranka qof aan isaga ahayn kama hadli karo qof kale oo musharax ah hadli kara male waa maqlaysay axzaabta inay lahaayeen nafaayagan u baqayna oo ayagii loo dhaartay xataa waxaan la socotaa hadda wuxuu ku jiray telefishinada Soomaaliyeed mid kamid oo live ka ah oo private oo uu ku bixiyay 100,000 waxa ayaan daraa wuxuu ku leeyahay ammaanka waa la sugay madaxtooyada uu joogo dhinacyadeedii waa burbursan yihiin sidii hadda qaraxii Bashiir iyo markay ku dhinteen hadeertaan markii qaraxii la galay ilaa hadda waa burbursan tahay haddana inda adeegiisa Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku leeyahay war anagu ammaankii waa sugnay war anagu waxaanu sameynay waxaan la koobi karin 6 qodob hal xabba kama qabo 6 qodob waxay ahayd 6 maamul goboleed dalka iyo dadka inuu gooyo waxa u soo sameeyeen dadka cadawga ahaa ee waligood Soomaaliya raadinayay 6 maamul goboleed in loo qaybiyo Soomaaliya divide and rule illa dhaxdhigo sambuus saddex geesa ah maanta waad u jeedaa qolo walba geesteeda dhinac ka haysta xabsi ayuu mudan yahay Xasan Sheekh Maxamuud maahane inuu xil isku soo taago doqonnimay u tahay haybadeedna ma laho hantidii dadweynaha dhan buu dhacay xasan marka maxaa ku mucaaraday xasan wuxuu tagay waxaan qof Soomaali u sameyn jigjiga madaxweynuhu hadalkiisu waa dikreeto madaxweynuhu wuxuu bedelaa caalamka mala sanaawi caalamku bedelay ninka la yiraahdo Saddam Hussein caalamku bedelay madaxweynuhu wuxuu leeyahay dalka asaga head of state ah madaxdii wadanka weeye محمد سياد برre Allah u naxariistay dagaalkii 77 intaysan dhicin jigjiga horta waa xaruntii ugu weyneyd marka la yiraahdo goday waxa joogay Ethiopian ciidanka diyaaradaha joogeen ciidanka lugtana Ethiopia difaaca ugu horeeya meesha ku jirtay ugu xoog badan buu ah sidaas awgeed markii la qabsadayna waxa joogay caare Allah u naxariistay haystay
waxaan kuu sheegayaa maxamed cali samatar inta taguu ka qudbeeyey maxamed siyaad barre dagaalkii 77 oo bilaaban buu inta tegey ayuu wuxuu sameeyey isaga oo saraakiishii soo cabirayso istaariga sameynaysa yacni rabtay taatikada inay sameeyaan ayaa la yidhaha haddii lagu qabta ka waran maxaa ii haruu yidhi haddii maanta jigjiga intay gacanta amxaarada ku jirto manaf baa ii nool ninka la yidhaahdo cabdullaahi yuusuf waa lagu xiray laba shay unbay ujeedadu ahayd kow horta waxa weeye in la tuso halka soomaali ay marayso oo ay soomaaliya waxa la yidhaahda ay u dhammaatay sharafteedii iyo karaamadeedii oo madaxweynihii kiilka shanaad waa ku jeesjeesay xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi wuu ku mahadsan yahay inuu ra-iisul wasaaruhu noo soo diro asaguna inta qosbiyu yidhi ani hadda koraa layga soo dalbaday kana ninka la yidhaahdo horta in la tusayna wax la yidhahdo soomaali jirin tan saddexaad qoomiyadda ethoobiyaanku waa 4 waa oromo iyo tigree iyo nimanka la yidhaahdo amxaarig iyo uraagada ayaa ugu weyn saddexdii kale oo isku dhinaco waa kaceen tigreega waxaa la rabay in la tuso wax la yidhaha body language soomaaliyana la jirta marka gaarisana bishaanuu imaanayaa sidoo kale gaarisu inta yimaado ka noqonaya maxamed siyaad barre waqtigiisii inta loo soo propose gareeyay markii igad uu asagu uu chairmanka ahaa baa la yidhi kiilka shanaad baa lagu casuumayaa oo casuumaad ka helnay madaxweyne ma aadaysa wasiirkii brotocolka war waad qaldantu dalku waxa weeye haddii one man one vote yahay waxa weeye xasan oo kale maba la soo qaadeen inuu failure yahaa waxaan rabaa intii xasan inaan ku kabo gudaha ma ahina siyaasadii dabadda maadaama anigu aan ambassador ahay insider aan ahay wax badan aan ogahay shirar badan aan baashkayga ku galo aan maalintii 2 safaaradood 3 safaaradood aan si aan ama halista ogaado ama halka Soomaaliya ogaado aan access u leeyahay aan walba aan gali karo waxaan kuu sheegayaa fursadda uu dabadda xataa ka qaaliyey ka qasaaray lama koobi karo halkaan markii la imaanayay oo malla sanaawi ay westernku ku kaxsanaayeen oo China keenay markii inta la rabay in lagu bedelo Soomaaliya fursadda la siiyo David Cameron uu kula lugeynaya maqaayadda Edmond West London bariga London uu ka qadeynaya Xasan Sheekh waxa la rabay in Ethiopia inta lagu bedelo annagana la empower gareeyo xabashi iyo waxaan xunka qunjuraafka maadaama aan full of resources nahay diamond-ka haysano dieselka haysana petrolka haysana in la siiyo wuu beerdiray in adeer fiiri Yaman baa la tagay wiilasheedii buu diray gabdhaha yaga Sacuudi Carabiya oo Uganda iyo Ethiopia ay diideen iyo Bangladesh buu waxay television soo fariistay uu yiraahdo hay'atay shay muhiim waa ceeb إذا لم تستطيع هذا حشوني واحد ربط سماوي موحد كنت أجرنا حسن إنه جيجت جي موحد كنت أجرنا إنه قبلي الصومالية سعود عربية كقضي موحد كنت أجرت تكو جيب استبلاد ديك ورقي سر أي نقطة موحد كنت أجرنا إنه دول كيجي كلاجويي أو ديبي ماشي اللي راح حلاني ويوروبسيا موحد كنت أجرنا بالدوغلة oo diyaaradaha ay baaladoodayada lagu tababari jiray inuu Mareykansi ma waxaan ku taageeraa constitutionkii haday noqoto xataa doorasho haday dhacdo waxa dhacaya doorasho ah nin dooraha u dheen dadka saxaw dambaajiyeen xasan xoolihiina asaga haysta by 7 marka September la gaaro wuxuu furayaa boorsooyinkii aaw saaxiibadeena baan ku weynay kuwa aan ka filan baan ku weynay oo nin walba wuxuu ku leeyahay wallahi hade wixii dhacay laga heshiiyay baa loo bedel sheekadii telefishinadii lagu caay jiray doodihii la qaban jiray kuwa xiraa hadda u kaambin gareynaya Soomaaliya wax ku soo degi maayo xasan wuxuu yahayna waa arkeen dal iyo dad iyo dunyaba waa dhacay iyo diinba waa liqay waxaan dhihi lahaa yaan laga hadlin xulufada dam jadiid xulu dheebin mayna xabsi waa in loo diro horta yaan bal laga hadlin ayaga muwaadiniinta kale anigu waxaan aaminsanahay inay axsaabtu ka hadasho jigjigaada waxba naga ma aadan weydiin meeshii Soomaaliya milyanka uu ku dhacay waxaan ku leeyahay oo xasan ku soo gabangabeynaya wuxuu yiri nintii saba anfacay agab hadaad moodo umuliyaado gaajo qaba oo culku eryaayo hadaad aqalka ugu soo gashee magan u soo aado ulbu kaaga reebaa wixii ka itaal badane ha ka eegin doqon kaamirido aarku siisida war xasan wallahi billahi tallahi dalka wuu bixinaya dibna inaan loo arkin Soomaaliya maanta talaleediina dhuuni iyo dhurkiina kala